آسيا ما لا سocota riwaayad sahanka nolosha haa ugu dambeyntii xaawakiin ayaa u sheegtay mooga in Joofla uu ku soo laabtay daaqsan waa hubaal in uu isku naxay markii uu maqlay in Joofla uu soo laabtay ma xasuusataa in mooga iyo madaxa burcadbadeeda ay qorsheynayeen inay qabtaan Joofle ka hor inta aysan booliska qabanin weligaa hadayalsanin awoodda sharciga sidoo kale toddobaadkii la soo dhaafay dirir iyo daahir biyaha daaqsan ku arkay markab ay ka shakiyeen kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa saameyn ku yeeshay nolosha bulshada daaqsan oo dhan waxaan rajaynayaa inay arrintan u gudbiyeen ciidamada ilaalada xeebaha daaqsan way la wadaageen taasi nimcayar ugu dambeyntii aabaheed ay cusbitaalka ku soo booqatay waa arrin adag in ilmo yar ay aragto aabaheed oo xaalad xun ku jira ama xaalad xun ku sugan ka sii dareen weliba boolis ilaalinayo qoyskan dhibaato badan ayay la kulmeen taasna waxaa keentay go'aamada uu Joofla qaatay sheekooyinka riwaayadda sahanka nolosha innaba caadi maaha dhegayso halqadda soo socota ee riwaayadda sahanka nolosha taas oo hawada ka bixi doonta jimcaha saacaddu markay tahay 2:00 galabnimo dhegayso riwaayadda kana qayb qaado adigoo ka soo wacaya taleefanka gacanta kalena soco barteena Facebookga iyo Twitterka gal khadka oo raadi sahanka nolosha